ku-xigeenka labaad ee xisbiga UCID Cabdirashiid Maxamed Basbaas oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbiga UCID ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay dhaliilo uu xisbiga wadani maalintii shalay ahayd u soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe. Anagu waxaanu diyaarunahay hadaan xisbiga UCID oo aan ahay gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee xisbiga inaan iska celino oo aan isu gaban annaga iyo xisbiga wadani xisbiga UCID waxa uu bulshada reer Soomaaliland u cadeynaya in gudoomiye Ciro iyo xisbigiisu ay caadeysteen inuu aflagaado qaawan oo ka baxsan milgaha iyo meeqaanka siyaasadda uu ku soo qaado gudoomiyaha xisbiga UCID iyada oo maalintii shalay ahayd uu mas'uulkii afraad ee xisbiga wadani ka tirsan uu aflagaado qaawan u geystay Injineer Faysal Cali Waraabe iyo xisbiga UCID iyada oo xogta aanu hayno sheegayso in ay diyaariyeen ayda Faysal Cali 10 qof inay u diyaariyeen. Cabdirashiid Basbaas oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro uu kulan qarsoodiye oo aanay ogeyn xubnaha kale ee hoggaanka sare xisbiga wadani oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aqalkiisa kula qaatay taa bedelkeeda uu dafiray balse muddo kadib uu xisbiga ka xalmariyay. Ciro waxa uu ahaa shakhsigii Ciro iyo xisbigiisu waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegaynaa in gudoomiye Ciro iyo xisbigiisu 29 bishii July 2018 uu kulan qarsoodi ah kula qaatay gurigiisa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyada oo gudoomiye Ciro lagu soo qaaday gaari ay madaxtooyadu leedahay lagana reebay dareewalkiisii iyo ilaaladiisii gaarka ahaydba marka Ciro kaliya ahaa wax xisbiga ka tirsan oo madaxa oo kalena lama aan socon. waxa xusid mudan in markii uu bilowday kulankaasi uu gudoomiye Ciro codsaday inuu kulanka dibadda uga baxo mas'uul ka tirsan xisbiga kulmiye oo madaxweynaha ku wehelinayay kulanka oo qaatay muddo 4 saacadood waxa uu gudoomiye Ciro heer xilo iyo xilafur uu maray xisbiga wadani ugu sarreysa in aanay is arag Muuse Biixi oo aan wax wada hadal yaana dhexmarin isaga iyo Muuse Biixina wax wada hadal dhexmarin ayuu mas'uuliyiinta xisbiga u sheegay. gabagabadii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga UCID Cabdirashiid Basbaas ayaa carabka ku dhuftay inay la kulmi doonaan cid kasta oo danta qaranka Soomaaliland ku jirto. teeda kale waxay ku eedeeyeen gudoomiyaha iyaga inuu la kulmay ninka la yiraahdo Farmaajo. gudoomiyaha iyagu dafiri mayno Farmaajo uu la kulmay waana la kulmi doonaa marka waxaan sidaa u leeyahay danta reer Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland dalkan iyo dantiisa albaab kasta oo ay naga gasho hadaan xisbiga u cidnahay waanu garaacaynaa. annagu ma nihin sida xisbiga wadani ee markay international community la kulmayaan waxay geeyaan un dacwad bay gudbiyaan waxay geeyaan isqabsi baa jira bay geeyaan waxana lagu sameeyay bay geeyaan kalama hadlaan international community midnimada reer Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin kalama hadlaan waa arrin ay caadeysteen. Axmed Nuur Ciise Maxamed Bulsho TV Hargeysa.